بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا وناسن داوديال halkan waa telefishinka dalsan muqdisho waxaan kasoo gudbinayaa barnaamijka faqaad ciyaaraha waa xad taariikhdu waxay ku beegan tahay 21 bisha 9 sanadku waa 2025 barnaamijka maanta intiisa badan waxaan kaga hadli doonaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda Yurub natiijooyin ka soo baxay kulamada caawa ciyaari doona waxaan dul istaagi doonaa kulanka adag ee dhaxmaraya Arsenal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City falaqeyn kooban oo kulanka ku saabsan ayaa barnaamij saaxiib ku soo qaadan doona sidoo kale waxaan eegi doonaa hadaladii ay ka yiraahdeen macallimiinta kulamada laga ciyaaray si gaar ah tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Enzo Maresca wuxuu ka yiri guuldaradii xalay kooxdiisa ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea guudaan waxyaabihii laga yiri guushii Liverpool ayaa sidoo kale barnaamij saaxiib ku soo qaadan doona ku bilaabo barnaamijka faqaadada ciyaaraha dalsan TV horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League kulamo waaweyn ayaa laga ciyaaray shalay ilaa xalay sidoo kale kulamo waaweyn ayaa caawa jira waxaan ku hormarayaa kulanka adag ee derbiga ah ee caawa dhaxmaraya kooxaha Arsenal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City kulankan ayaa ka dhacaya garoonka Fly Emirates oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana uu yahay kulan weyn labadan kooxood ayaan isku arkaya kulankooda shanaad xiliyaareedkan 2022 waana kulankooda ugu horeeya oo xiliyaareedkan labadan kooxood isku arkayaan inkastoo labada kooxba ay ciyaarayaan kulamadoodii shanaad min 4 kulan ay soo ciyaareen kooxda Arsenal ayaana 4 kulan ay soo ciyaartay waxa iyadoo ay soo adkaaday 3 kamid ah hal jeer ayaa laga adkaaday Manchester City-na 4 kulan ay soo ciyaartay Premier League 2 jeer laga adkaaday 2 kulanna waa ay soo badisay hadii aan eego isaragooda kulamadoodii ugu dambeeyay labada kooxood ee Arsenal iyo Manchester City kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 5 kulan ay ugu dambeysay oo ay guud ahaan labadan kooxood Manchester City iyo Arsenal bay sarkaan 3 kamid ah iyadoo adkaatay labada kala barbaro ayay ku soo dhamaaday taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta Manchester City 5 kulan ugu dambeeyay ee sarkaan kooxda kubadda cagta Arsenal aysan wax guulahaysan ka gaarin kulankii ugu dambeeyay oo labadan kooxood dhaxmarana waxa uu ahaa kii ku soo dhamaaday 5 gool ciyaartii dhacday 2 February 2025 kulankii qaybta ka ah ciyaareedkii hore iyadoo kii ka sii horeeyana barbaro 2-2 uu ku soo dhamaaday Arsenal ayaana ciyaareedkii la soo dhaafay waxay Manchester City ka qaadatay 4 dhibcood labada lug marka la isku daro sidoo kale xiliyaareedkii ka sii horeeyana 4 dhibcood ay ka qaadatay iyadoo marna gool waxba kaga adkaatay kulankii kalena ever ayuu ku soo dhamaaday hadii aan eegno waqti xaadirkan labada kooxood Arsenal iyo Manchester City waxay Premier League ay ka fadhiyaan kaalinta 3aad iyo kaalinta 12aad Arsenal ayana 3aad iyadoo fadhida iyadoo leh 9 dhibcood halka Manchester City 12aad ay fadhido iyadoo leh 6 dhibcood kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Manchester City kulankooda ayana wuxuu yahay kulan si weyn isha lagu hayo hadaba ciyaartoy dhowr ah ayaa kulankan labada kooxood ee ka maqnaanaya Arsenal hadii aan ku horeyno Bukayo Saka Jesus Havertz Ben White iyo Martin Odegaard ayaa ka maqnaanaya kooxda kubadda cagta ee Arsenal sidoo kale Manchester City iyaduna waxa laga yaabaa in kulankan uu ku soo laabto daafac lagu magacaabo John Stones sidoo kale Ryan Cherki oo kulankii ugu dambeeyay kooxda ka maqnaa ayaa isaguna kulankan inuu ciyaari karo shakil ay gelinaya balse Marmush ayaa wali ka maqnaanaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada kooxood ayaana kulankan waxay u dagaalamayaan inay guul weyn ka gaaraan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League kulamadooda ugu dambeeyana Manchester United ayay 3 gool waxba Manchester City kaga soo adkaatay todobaadkii hore kulankii Manchester Derby Arsenal 3 gool waxba ayay iyaduna ku soo adkaatay kulankii ka ciyaartay horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League kulankan ayaa wuxuu yahay kulan isagu si weyn isha lagu hayo waxaana kulankan uu soo galayaa saaxiibayaal 12 iyo qadar 30 daqiiqo saacada Geeska Afrika waana kulan si weyn isha lagu hayo Arsenal iyo Manchester City ayaan leegi doonaa labadan kooxood kooxda qaadan doonta dhibcaha ugu horeeya ee xiliyaareedkan 2025 Stuart Atwell Karsooraha lagu magacaabo ayaana kulankan dhexdhexaadin doona waana kulanka ugu adag ee todobaadkan marka laga ciyaari doono horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ciyaarihii kale horyaalkan laga ciyaari doono hadii aan sii eegana Aston Villa ayaa la ciyaari doonta Sunderland ciyaar 4 kalma soo galaysa Bournemouth iyo Newcastle ayaa iyaguna is arki doona 10 saac galabta ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka ee Bournemouth ay ku ciyaarto sidoo kale kulamo waaweyn ayaa shalaga ciyaaray horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League Liverpool guushii shanaad oo xiriir ah ayay gaartay xiliyaareedka 2022 ciyaartii ka dhacday garoonka Anfield kulankii Derby Merseyside ayana Everton waxay kaga adkaatay 2 gool iyadoo 2 gool Liverpool ay ka heshay xidigaha kala ah Ryan Gravenberch iyo sidoo kale Hugo Ekitike oo isaguna bandhigista wada qaybta hore ayay Liverpool ku boobsiisay 2 gool iyadoo kooxda kubadda cagta ee Everton gool la timid qaybtii labaad ugu dambeyntii Liverpool way adkaatay 2 gool ayayna ku sii dheereysay
guuleysatay 5 kulan oo ciyaartana 15 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ciyaarihii kale ee laga ciyaaray Premier League waxaa qayb ka ah Tottenham taaka loo dhigay 2 gool Brighton ayay isla dhaafi waayeen Nottingham Forest iyo Burnley hal ayuu kulankooda ku soo dhamaaday Crystal Palace iyo West Hamna 2-1 Crystal Palace ku adkaatay Leeds iyo Wolverhamptonna 3-1 kooxda kubadda cagta Leeds ayaa iyadu ku adkaatay kulankii kale ee xalay la wada sugayay waxa uu ahaa kii dhexmaray Chelsea iyo Manchester United ciyaartan ay ka dhacday garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaartan waxay ahayd ciyaar isbedel weyn uu ku yeeshay Roseal labada dhinac ay qaateen Chelsea kulaayadeeda Robert Sanchez ayaana 5 daqiiqo oo qura kulanka oo socda waxa uu qaatay Roseal ciyaarta taa oo wax badan ka bedeshay bandhigii ama tacticadii tababaraha kooxda Chelsea Enzo Maresca ugu talagalay kulankaasi ugu dambeyntiina Chelsea 2 gool degdeg ah ayaa lagu hormaray kadib Rosealsi waxaana uu tababaraha uu sameeyay bedelo qalqal ka muuqday isla markaana ciyaarta 22 daqiiqo ilaa 23 daqiiqaba waxa uu sameeyay 3 bedelo degdeg ah isagoo garoonka saaray Palmer William Estafio iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo Pedro Neto kuwaas oo runtii iyaguna maqnaanshahooda amilada ka bixitaankooda garoonkaba saameyn weyn ku yeelatay kooxda kubadda cagta Chelsea si walba noqotay 2 gool waxba qaybtii kubadda ugu galaastay markii dib loo soo laabtay Chelsea waxay la timid gool qura waxaana isaguna ciyaartaasi bedelo dhowr ah uu sameeyay tababaraha kooxda Manchester United Casemiro ayaana qaybtii labaad isaguna Rosa qaato ugu dambeyntii Manchester United 2 gool ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Chelsea wali waxa halkeeda ka sii socota kaarta Chelsea ka haysata inay ku soo adkaato garoonka Old Trafford oo 13 kulan aysan ku soo adkaanin 2012 13 ayaan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta Chelsea inay ku soo adkaato garoonka Old Trafford wana xilligii uu hogaaminayay Manchester United tababarihii wactaaga ahaa Sir Alex Ferguson Liverpool iyo Everton waxa laga diiwaan galay kulankooda waxa qayb ka ahaa tababaraha kooxda kubadda cagta Everton ninkala magacaabo David Moyes 5 kulan oo booqday ayraadii Liverpool ayaa 5 kulan ugu dambeysay ama 5 kulan isku xigta waxay ka adkaatay kooxda kubadda cagta Everton waa tan iyo 1988 hore uma dhicin in 5 kulan isku xigta derbiga ay ku adkaato kooxda kubadda cagta Liverpool kulanka oo ka dhacaya garoonka Anfield sidoo kale David Moyes 22 jeer oo booqday garoonka Anfield wali waa uu ku soo badilaayahay ciyaarihii kale laga ciyaaray Premier League kuwaas ay ahaayeen iyadoo ugu dambeyntiina Brentford iyadoo 3 gool waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Fulham hadaba waxaan eegaynaa kulamada kale iyaguna laga ciyaari doono caawa horyaalka wadanka Spain ee liigaha iyo sidoo kale kulamadii iyaguna laga ciyaaray horyaalkaasi ayaa eegi doona Real ayaa iyaduna waxay gaartay guusheedii shanaad oo xiriir ah 2 gool ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Espanyol kulanka ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Real Madrid Eder Militao iyo laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe ayaa 2 gool u dhaliyay Real waa laga yaabay 5 kulan iyaduna waxay maraysaa 5 gool waa kooxda kale iyaduna xiliyaareedkan 5 kulan ay ka ciyaartay horyaalkeeda iyadoo adkaatay marka laga soo tago kooxda kubadda cagta Liverpool 15 dhibcood ayayna haatan ku hogaaminaysaa Mbappe isaguna waa la celinayahay oo goolalada wali waa wadaya kulan kastana waa uu dhalinayaa ama uu caawinayaa isbedel dhowr ah iyo Xavi Alonso uu sameeyay shaxdiisii kulankii toddobaadkan ay ka ciyaartay tartanka xisaab badan UEFA Champions League ugu dambeyntii 2 gool waxba ay kaga adkaadeen iyadoo Real Madridna bandhig cajiib ah ama soo dhaweyn weyn ay u sameysay wiilka lagu magacaabo Abdulrahim kaasi oo isagu reer Morocco ah isla markaana dhul gariir ka dhacay gudaha Morocco ku waayay hooyadii iyo sidoo kale aabihii maamuus weyn ay u sameeyeen kadib markii uu wiilkan uu ka soo muuqday TV-ga isagoo xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta Real Madrid kadib musiibadii ama dhul gariirkii ka dhacay Morocco oo ku waayay hooyadii iyo aabihii xalayna isaga ayaa daafuray ama kubadda goobaad baasay kulankii Espanyol iyo sidoo kale Real Madrid dhaxmaray si weyn ayaan lagu amaanaya kooxda kubadda cagta Real Madrid kadib istaagka ay u muujiyeen wiilkaasi reer Morocco ciyaaraha kale ee laga ciyaaray Spain haddii aan eegno Sevilla 2 gool waxay kaga adkaatay Deportivo Alaves Osasuna Villarreal 2-1 Villarreal ku badisay Atletico Clubna 2 gool waxba Valencia ayaa kaga adkaatay Girona 4 gool waxba waxa ku dubatay naadiga Levante xilli 2 roos ay qaateen xidigaha kooxda kubadda cagta Girona lagu magacaabo sidoo kale kooxda Barcelona ayaa caawa iyaduna ciyaareysa kulan kale oo qayb ka ah horyaalka waddanka Spain liigaha Cadiz ayaa la ciyaareysa Barcelona kulanka ugu dambeeyay Nustersen kulala Valencia ayay kaga adkaatay caawa waxay doonayaan in guusha afraad ay helaan 4 kulan ay soo ciyaareen Barcelona 3 kamid ah waa ay soo adkaatay hal kulan barbar ay gashay 10 dhibcood ayayna la fadhidaa iyaduna kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka waddanka Spain ee la liigaha waxay doonayaan caawa inay sii wataan bandhigooda guulasha isla markaana ay ka adkaadaan kooxda kubadda cagta Cadiz ciyaarahaasi ayaa laga ciyaarayaa Spain la liigaha sidoo kale horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A Sassuolo ayaa caawa la ciyaari doonta Inter Milan kulan weyn 4 saac oo dhiman ayuu kulankan soo galayaa sidoo kale Talyaaniga Juventus xalay barbaro ayay la gashay naadiga Hellas Verona AC Milan 3 gool
waxba ayay kaga adkaatay dhinaca Jarmalka Bayer 4 gool iyo gool ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Werder Bremen ayraade Heidenheim Hoffenheim ayay 4 gool iyo gool kaga adkaatay xilli saddex ka mid ah goolasha uu dhaliyay laacib lagu magacaabo Harry Kane oo durbadiiba laga yaabay 5 kulan ama 4 kulan oo la ciyaaray horyaalka wadanka Jarmalka ee Bundesliga 13 gool ayuu ku hogaaminayaa waana xidig runtii aad looga yaabay bandhiga ugu qaadanayo kooxda kubadda cagta Bavaria xidiga kabtanka u ah xulka qaranka Ingiriiska ee lagu magacaabo Harry Kane Faransiiskana Lille iyo Lens 3 gool waxba Lens ayaa kaga adkaatay ciyaarahaas ay saaxiibayaal laga ciyaaray guud ahaan shanta horyaal ee qaaradda Yurub sidoo kale haddii aan eegno gudaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club shalay waxay ciyaartay iyaduna kulankeeda koowaad ee sareebka tartanka CAF Champions League oo ay ka qayb galayso Kenya ay shalay ku sugneed waxaana ay halkaas kula ciyaartay koox lagu magacaabo Kenya Police kaasoo iyaduna ka ciyaarta gudaha wadanka dalka Kenya ugu dambeyntii lugta koowaad oo shalay home ay ahayd 3 gool iyo gool ayaa lagu adkaaday kooxda uu hogaamiyo tababare Daadir Amiin Tata kula labaad ay la leeyihiin kooxda kubadda cagta Kenya Police kaasi oo isaguna dhici doona sabtiga soo aatan waana kulanka go'aamin doona kooxda sida tooska ah ugu soo baxaysa heerka gruubka tartanka CAF Champions League gudaha dawadayaal inta ay ku soo go'goonaya barnaamijka faqad ciyaaraha Dalsan TV barnaamijka dabada inta ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo